الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد مركبور إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا السكره ونون نعمين كسان سوكو بكرين رب سبحانه وتعالى قرآن كسحو كليه وأما بنعمة ربك فحدث. إخواني عاوة كلمة وحي قصة صنطحي فضلك أيلاها bisha muxaram Soomaali waxay u yaqaanaan zako ama sanadka hijriga bisha ugu horeysa shahrullahi muxaram Allah. bishan fadaa'il ayay leedahay dhaxdeeda, marka waxaa la rabaa dadka walaalaheen inaan wargelino aan u sheegno oo waxaa la rabaa in qof kasta oo waxaa la rabaa loo wargeliyo bishan inay tahay shahrullahi muxaram. dadka qaar lama socdaan shahrullahi muxaram, marka waxaa la rabaa in la iswargeliyo fadliga ay leedahay bishan. bilahan ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay ina ciddata ashuhuuri cinda allahi 12 shahran fi kitaabi illah yowma khalaqa asamaawaati waalarda minha 4 xurum. 12 bilood waxaa ugu fadli badan afartaa laga soo reebay waxaa ku jirta shahrullahi muxaram. marka su-aasha waxaa waaye sababta loo soomay maxaa waaye? marka inaan ilaan hala soomaalay sababta loo soomay maxaa waaye? nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu ka hijrooday mako oo uu aaday madiina wuxuu arkay dadkii deganaa madiino yahuudi ayagoo soomaya. markaasuu weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam, war maxaad u soontaan? waxay yidhaahdeen waa maalintii nabi muuse uu badbaaday fircoonna la halaagay waayo ay dhaheen. markaasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naxnu axaqu bimuusa, annaga ku habboon muusa. marka wuxuu amray nabiga in la soomo 9 iyo 10, waayo yahuud waxay soomayaan yowmu cashuura 10. nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkiis wuxuu leeyahay la in baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna 9.